قد كتليفون كان فردنا إن شاء الله. هلو. شيخ سلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام خير الله كسي ومدة wax u sheego wax walba dafare Sheekh Suliyo wax baa ku weydiin lahaa su'aal baa ku weydiin ayaamahan oo dhan ku soo wacay waa gartay sheekho aniga islaanteedii ayaa horta isku dhacnay 3 dalaqo ku furay 3 dalaqo culimada qaar waxay leeyihiin furuntaa qaarnimo furuntii leeyihiin marka taasina iga jawaabaan rabaa waa sax way culimada qaar waa leeyihiin masaladu aska khilaafiyan waxaan kula talinayaa magaaladii joogtaan jarmal waa sii joognaa waxa wanaagsan in labadiina islabadiina masaladaas markaas oo kale oo saas oo kale culimada mas'ala khilaafi ay tahay si xukunka cad aad u heshaan oo ama kan nila qaado ama kan nila qaado waxay ku xiran tahay adii xaaskaaga inaad ilaan dacwo way arintan dacwadan waxay ku fiican tahay in labadiina la dhageysto markii labadiina la dhageysto ayaa xukunka nila sheegi kara insha Allah hayo waa soo xiriirina ma hadaar aniga adii kala culimada jarmalka xiriir hadaartan ani labadiina soo waca insha Allah hay'adda ma hadda waa ka tagay marka idaa waca soo waca ma yaqaas soo waca insha Allah هاي مع الهاي dhinaca kale halow halow halo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ميا شيخ يقدبي ها saa kula hadlay شيخ توبك maxaa waa caawa maxaa tiri توبك maxaa waa adiga maxaa rabtaa inaa weydiisid waxaan weydiin lahaa sheekha dowladda Soomaaliya in loo duceeyo inta soo gelina u ducaa loo duceeyay dowladda dad qaas ma leedahay xukunka ha haayaan loo duceeyay mase dowladda Soomaaliya in dowlad fiican ka dhalato dad qaas aan rabaa dad qaas ma dowlad fiican de waxa way qof walba qaas uu rabaa mutashiiq ma qaasna ma ogolo qaas ma ogid khayrka wax ku jiro khayrka wax ku jiro ma ogid waxa leedahay ilaahay dad wanaagsan xukunka Allah noogu dhiibay intaas ku duceyso maxay halka qaasku umanayna bir adigu lugta ka gooy kara laftiga waan aragna dadkii loo duceeyay lugaha inay dadka ka jarayaan waan aragna marka wadankina meel xun gaaray marka ilaahay ka baryay min wadaagsan inuu ila xukunka nagu dhiibo naam dhinaca kale الو السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الله أبو كروجو دلك فرانسيسكو تفضل أخي شيخ waxaan ku weydiin lahaa hooyaday oo muddo hore dhimatay waxaa lagu leeyahay 10 maalin oo Ramadaan marka maxaa sameyn karaa sheekhu waa ka soomi kartaa adiga maxaa u soomi weysay inta soonka la gaarin waa carruurteeda waa ka soomi karaan haddii wax kaloo la sameyn kara ma jiraan waa fidyo waa laga bixin karaa ha 10 miskiin fidyada qaabkee loo bixinaa 10 miskiin la quudina 10 maalmood Soomaa 10 maalmood 10 miskiin quudi insha Allah هذا ما سنتاش طيب بارك الله فيك لينعك الو الو ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يغفر لك سلام بارك الله فيك ما شاء الله وحق صوع عينك سلام كريا جزاك الله خير إلهي بارك الله فيك أخي إن شاء الله حياك يا سلام لينعك الهلو هلو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا يا شيخنا جزاك الله خير أول شيء برنامج كان خير كبدن بارك الله فيك أخي جزاك الله خير سيدنا كسوع مقعي شيخ حسين الإرادة وحن كويدي لها شيخ وخلاف وابتي هاي خلاف كان أمدنا صومالي هاي صوت مركنا لوغ الدعية إن شاء الله أدنى قدر أدنى دعاء أدنى وطن إن شاء الله دعاء وإن شاء الله دعاء ودينا إن شاء الله هاي سؤال كويدي لها سؤال سوحيتا هاي سجود السهوي قرم واجبات شروط دي سمحيتها هاي maxay tahay سجود السهوي قرم واجبات او qofka ku waajiba oo laga rabaa maxasab waxyaabaha keena oo ka dhashay maxaa kamid ah طبعا sujuud sahwiga ayda markasta waxay kabtaa hadii sunanka iyo waajibaadka laga tago ayaa salaada lagu kabaa nabiga kaleey salaatu salaam ayaa sujuuday marka iyadu waa jabr way waxay kabaysaa sideedaba markastoo qofka uu ziyaado ku daro salaada waxaan ku jirin oo ziyaado ah ama uu naaqis uu sameeyo ayaa wax u kabaysaa laakiin waxay kabid caad u kabi kartaa markii sunan iyo waajibaad laga tago ama markii fard ama rukni laga tago sida
rukuuc laga tegay ama sujuud laga tegay ama istaag laga tegay ama taxiyaadka ugu dambeyso oo arkaanta kamida laga tegay ayaga ma kabi karto waxaa qasab ah rugnigaas inaad la timaado kabacdi ayaa sahwiga ka qaadaysa walidaalika nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu yidhi nikaayatan lishaydaan waa shaydaanka cadow nagu yahay inahu caduwun lakum fattaqiduuhu caduwa marka qofka wuxuu isku dayaa inuu xataa salaadiisa ka qaso markii laakiin sujuud sahwi lagu daro waxaa la yidhi carruur isku beegaya saasa soo aroortay oo wuxuu leeyahay aniga sujuuddii aan diiday dadkan waa iskaaga naqsanayan qofkan marka ilaahay subxana watacaala ayuu aad arrintaas u dhibsanaya la yidhi marka asaga oo na soo dhex galay oo salaadii oo naga waswaasiyey ayaa hub ahaan lagula dagaalamaya isla markaasna haddii aad taxiyaadka dhexe ka tagtid iyo waxyaaba oo sunanka iyo ka tagtid xaaladaas oo kale iyadana uma baahdin inaa wixii aad soo celisid iyada kalegeed ayaa kaa kaafinaysa waa takfiifan lilumma ummadda ayaa loo khafiifiyey laakiin haddaad rugni ka tagtid oo meel 3 rakaca ama tukatay mas 4 tukatay ay tahay rakacdan inaad tiraahdo sujuud sahwi ku daraa ma waxa way rakac kale inaad ku darto zaa'ida zaa'idkaas ka dhici karo sujuud sahwiga kadibna aad markaad dhamaysid aad sujuud sahwi la timaad insha Allah